waa gabar dhalinyaro ah waxayna caan ku tahay alla kacabsiga, qanaacada iyo weliba qalbi wanaagsanaanta. Inkastoo ehelkeedu danyar iska ahaa, haddana waxay dhammaystiratay waxbarashadeedii. Qalinjabinteedii kadib waxaa soo doontay mid ka mid a ragga hantiilayaasha ah, wuxuuna u sheegay ehelkeeda in aanu wax kalifaada reerka ka doonayn, sidaa daraaddeed ay gabadhooda siiyaan isaga. Reerkiina way ku waafaqeen iyagoo aan la tashan gabadhooda. gabadhuse iyaduna arrintii way ku waafaqday iyadoo intaa ka cararaysa inay waalidkeeda ka soo horjeesato. gabadhii waxaa loo guuriyey qasri aad u weyn oo quruxsan. markii ay qasrigii tagtay ayay tukatay 2 ragcadood iyadoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukrinaysa oo u mahadcelinaysa, sidoo kalena weydiisanaysa khayr weliba kana magangalaysa shar weliba. 2 bilood kadib guurkeeda waxay ogaatay in ninkeedu uu hore u soo guursaday dumar badan, sidoo kalena dhammaantood uu furay kadib markay dumarkaasi u dhali waayeen wiilal. yacni dumarkii uu soo guursadoo dhan waxay dhali jireen gabdho. ninkeedii ayay u dhowaatay oo la hadashay, waxayna xasuusisay xadiidkan ah: ha nicina gabdhaha, sababtoo ah iyagu waa wehel qaali ah. ruuxii tawaliya oo arrintooda gacanta ku haya 2 gabdhood uu dhalay waxay astur iyo xijaab uga noqdaan ama ay ka xijaabaan naarta. balse waanadaas ay waanisay ninkeedu kuma saamoobin, aad bayna u cabsanaysay markii ay uur qaaday kadib. mana aysan ogaan ilmaha ay caloosha ku sido ilaa maalintii ay ka dhalaysay. markii la gaaray maalinkii ay dhali lahayd oo isbitaalkana ay joogto ayaa waxay dhashay gabar yar oo aad u qurux badan. ninkeedii ayaa inta u yimid isbitaalka dhexdiisa ku furay, isagoo u dhammaystiray dhammaan wixii ay u baahneed, kuna yidhi: haleel oo aad reerkaagii. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. gabadhii aad bay u murugootay, laakiin kama aysan quusan Allah subxaanahu wa tacaala oo Allah ayay barisay, gacmahana u taagatay iyadoona uga mahadisay nicmo kastoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. nimcooyinkaasna ay ka mid tahay gabadhii yareed ee quruxsaneed ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku irsaaqay. wixii maalmuhu socdaan, bilooyinkuna soo wareegaan, ninkii isbitaalka maamulaha ka ahaa ayaa maqlay qisada gabadhan, aad ayuuna uga helay dhaqankeeda quruxda badan iyo siday Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xiran tahay. wuxuuna ka dalbaday inuu guursado, iyaduna way ku waafaqday, laakiin waxay tiri: hal shardi ayaan wataa. wuxuu yidhi: waa maxay shardigaasi? waxay tidhi: gurigaagii hore ee iska xirnaa waxaan kaa codsanayaa inaad u beddesho meel masaakiinta lagu quudiyo. ogowna anaa kuu ballanqaadaya, anaa meeshaasi ka adeegi doona, masaakiintana quudin doona, oo hawshaasi mas-uuliyaddeeda anaa qaadaya. kadibna wuu ku waafaqay. muddo kadib reerkaasi Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku irsaaqay 2 wiil, waxayna ku noolaayeen nolol qurux badan. gabadhii yareed ee hooyadu dhashay way kortay, sidoo kalena waxbarashadeedii ayaaba u soo gabagabowday. markii jaamacaddu u dhammaatay waxay go'aan ku qaadatay inay hooyada kala qayb qaadato hawshan samafalka ah ee ay waddo, sidoo kalena ay u fidinayso dadka tabaalaysan ama fuqarada ah ama cayrta ah. iyadoo xaaladdu sidaa tahay, maalin maalmaha ka mid a waxaa reerkii u yimid nin da' ah, timihiina caddaadeen, sidoo kalena xiran dhar baaliyoobay ama dhar duug ah. wuxuuna weydiistay reerka inay cunto siiyaan. markaasi ayay hooyadii yaabtay. inta ninkii si fiican u eegtay ayay ooyday, waxayna weydiisay su'aashan: maxaa kugu dhacay? dadka hantiilayaasha ah ee hodanka ayaad ka mid ahayd. markaasi buu yidhi: adduunya baa i mashquulisay, dadkii oo dhanna waan hilmaamay. markaaba iyadoo aad u ooynaysa waxay tidhi: ima xasuusatid miyaa? waxaan ahay xaaskaagii hore, tanina waa gabadhaadii. markaasi ayuu odag inta meel fadhiistay wuxuu gudagalay inuu aad u ooyo, wuuna qirtay qaladkii uu galay. wuxuu naga sheekeeyey qisada kala qabsatay isaga iyo wiilashii uu dhalay. wuxuu yidhi: wiilashii aan dhalay waxay iga soo saareen qasrigii weynaa, bannaanka ayayna ii soo tuureen. isagoo sii hadlaya wuxuu yidhi: run ahaantii tani waa cuquubada dembigii aan kaa galay iyo dembigii aan dumar fara badanba ka galay. fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad i cafisaan oo aad i saamaxdaan. intaa kadibna way cafiyeen. intaa kadibna furayaal ayay gacanta ka saartay, waxayna ku tidhi: furayaashan baloog hebel ayaa iska leh, adiga ayaana balooggaas iska leh oo degganaanaya.
gabadhiisina waxay u sii raacisay aabbahaygii aan jeclaayow maanta kadib cid ku dhibi doontaa ma jirto aniga oo gabadhaadii aad jeclayd ah ayaa kuu adeegi doona insha allah ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون wixii eebba dadka ugu nicmeeyo oo naxariis ah wax celin karaa ma jiro wuxuu celiyana wax soo dayn karaa ma jiro dabadiis waana adkaade falsan dadow xasuusnaada nicmada eebbe ee korkiinna ah abuuro kale ma jiraa oo eebbe ka soo haray oo idinka arsuqi kara samada iyo dhulka eebbe mooyee ilaah kale ma jiro ee xaggee laydinkaga iilayaa xaqa